بريايا ووطني وقلب هدايا ووطني وقضا كرايا ووطني heesaha u gaarka xisbiga wadani ayaa ahaa kuwa maanta ka baxaya guud ahaanba deegaanada kala duwan ee Soomaaliland maadaama ay ahayd maalintii loo asteeyay dabaaldega xisbiga wadani halkani oo ah khayriyada magaalada Boorama ayaa waxa isugu soo baxay taageerayaasha musharaxiinta golaha wakiilada gobolka Awdal iyo tartamayaasha golaha deegaanka Boorama ee xisbiga wadani kuwaasi oo soo bandhigayay cududooda taageere dadweynahan isku soo baxay ayaa watay astaamaha xisbiga iyo boodhar lagu xardhay sawirada iyo astaanta u gaarka musharax walba kuwaasi oo ku dhawaaqayay hal ku dhigyo kala duwan oo kamid ahaayeen waxaana goobjoog ka ahaa fagaarahani ay ku dabaaldegayeen taageerayaasha musharaxiinta golayaasha wakiilada iyo deegaanka degmada Boorama ee xisbiga wadani musharaxa madaxweyne ku xigeen ee xisbiga wadani ambassador Maxamed Cali oo Cabdi qaar kamid ah hoggaanka xisbiga iyo mas'uuliyiin ka tirsan xisbigaasi waxaana ugu horreyn hadalka qaatay gudoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka Awdal Maxamed Aadan Suldaan dhammaan dadweynaha kala isku soo baxay ee taageerayaasha xildhibaanada golaha deegaanka iyo baarlamaanka waan hambalyeynaa sida u yimaadeen waxaan aad iyo aad u hambalyeynaa dadweynaha wadani ee soo baxay waxaynu ognahay inaynu codka qaadan doono ballanteenu waa maalinta codka ballanteenu waa maxay waa maalinta codka aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin sidoo kale waxaa halkaasi hadalka iska daba qaatay musharaxiinta golaha wakiilada gobolka Awdal iyo sidoo kale musharaxiinta golayaasha deegaanka degmada Boorama ee xisbiga wadani iyagoona uga mahadnaqay taageerayaashani sida ballaaran ay u muujiyeen cududooda taageere ayaa waxay sidoo kale ka codsadeen in 31 bisha May ugu heeliyaan codkooga intaa kadib waxaa hadalka qaatay xildhibaan Abubakar Cabdiraxmaan Good oo kamid ah hoggaanka xisbiga wadani iyo sidoo kale mas'uuliyiin ka tirsan xisbigaasi waxaan kaloon halkan ka jeedinayaa dardaaran xildhibaanada soo socda maanta ee xildhibaanada golaha wakiilada iyo xildhibaanada deegaan weeye waxa waajib baan saaran fulin baatihiin ummadaasi waxay nii dooranaysaa cadceedda nii joogtaa waxa weeyaan inaad wax ka beddeshaan degmada Boorama oo qurux iyo sharaf kale ku soo celisaan ood ummadda u adeegtaan ood shaqaalo lagu seexdo aad u noqotaan ummadda waxay niigu soo baxayaan waa inaad shaqaalo ummadda aad ku seexata noqotaan maanta inamadaas oo aan u arko inamadii ugu aqoonta badnaa waa inamo wada dhallinyara inamo wada aqoon-yahan ah oo aan filayo runtii inay gobolkan mateli doonaan golo baarlamaan iyo ku deegaanba waxaan idinku dardaarayaa maanta cabashadiinna waxaad kaga jawaabi kartaan inaanu qof kulmiyi ka soo bixin gobolkan waar sidaan ba isku ognahay ugu dambeyn musharaxa madaxweyne ku xigeen ee xisbiga wadani ambassador Maxamed Cali oo Cabdi oo madashaasi ka hadlay ayaa waxa uu yiri Soomaaliland waxaan leenahay waardo taqaanaan xildhibaanada iyo deegaanada inta wakiilada iyo deegaanka cid u sharaxan gobol kasta waa taqaanaan kala doorta cidda waxtarasa dalka doorta deegaanka tegaya iyo baarlamaanka sii socda midna wax ka sheegi mayno waxay qaban karayeenna way qabteen waxay dhaliilayeen way la tageen kuwa soo socdaan rajaynaynaa inay wax taraan dalka oo ay wax ka bedelaan komishanka waxaan leeyahay waar idinka qalinka haya doorashada idinka u xil saaran idinka wixii ka qaldamana idinka leh wixii ka saxaana iyagaadne taariikhda idin gelaysaa if iyo aakhiraba waa la idinku xisaabinayaa xildhibaanada tartamaya cadaalad inaad u samaysaan bay idinka rabaan waxaan leenahay ummadda Soomaaliland meel kasta ay joogaan taageerayaasha xisbiga waxaan leenahay diyaargarooba inaynu si xalaala ku dooranno musharaxiinta xisbigu soo sharaxay ilaahay waxaan ka rajaynaynaa maanta bishii waa 25 maalinteeda doorashadaasi way dhammaatay waxaan rajaynaynaa in ilaahay inaga farxiyo oo aan ku faraxno xildhibaanada gobol kastaba wadani uga soo baxaya musharaxiinta golaha iyo wakiilada deegaankaba inaynu helno kuwa ugu badan ee wadanka ka soo baxa وعبسلان بشير فارح عبسلان ساها وربعين تقرن كالسوماليلان مقالة Boorama